geesi dhalay. Xiddigan waxaa lagu magacaabaa Idriss Gana Gueye. Waxa uu dhashay dalka Senegal waana ciyaartoyda ugu muhiimsan safafka hore ee PSG. Xiddigan ayaa laga saaray liiska ciyaartoyda wajahayay kooxda Montpellier ee toddobaadkan horaantiisa, taasoo ciyaartoyda PSG ay soo xirteen fanaanadaha khaniisiinta. Mar la weydiiyey macalinka kooxda PSG ee Mauricio Pochettino ayaa sheegay inuu ku maqan yahay Idriss arrimo shaqsi, balse xaqiiqdu waxaa banaanka keenay wargeyska RMC Sport oo xaqiijiyay in laacibkan uu diiday inuu xirto oo uu xaysiis u noqdo qowmuluudka. Xiddigan ayaa horey ugu soo ciyaaray kooxda Everton ayaa ka helay taageero labada ciyaartoy ee ka dheela horyaalka Premier League ee Ismail Sarr iyo Coyote iyagoo baraha bulshadooda ku taageeray. Waxaana sidoo kale taageero u muujiyay madaxweynaha Senegal ee Macky Sall, wuxuuna ku tilmaamay gees islaamnimadiisa ku adag. Sidoo kale waxaa dhaliil loo soo jeediyay labadan xidig ee garabsaag u muujiyay Idriss, waxaana kooxaha Crystal Palace iyo Watford lagu cadaadinayaa inay talaabo ka qaadaan.